بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، maantay waa faraxsana runta waxa weeye tallaabo muhiima ah maanta la qaaday. waxaan ku faraxsanahay in hadda meeshaan intaan imaan culimmadii waddanka u sarreysay yimaadeen oo ay ka hadleen oo ay muujiyeen khatarta cudurku leeyahay iyo dhaqanka laga rabo masaajidda in lagu dhaqo iyo sida dadka laga rabo inay u dhaqmaan. maasha allah, waa faraxsanahay. taas waxay caddaynaysaa qof walba waajibka ka saaran inuu cudurkaa ka hadlo weeye. shalay waa kala tagnay, waxaan isla ogeyn waan ku ballannay inaanu maaskiga ka dhigno qurux iyo fashion. maanta waxaan ku faraxsanahay culimmadii meesha joogta inay wada lahaayeen waxa dhallinyaro meeshaan safanna inay ay wada sitaan. waa guul weeye. waxaan mar dhow rajaynayaa ilaahay idinkiisa magaalada in la ceebiyo qofka aan sidan. war sideedaba in awaamirta iyo talooyinka caafimaadka ee ku saabsan xakamaynta cudurrada faafa la fahmo waa reer magaalnimo calaamadeedu wey. waa calaamad reer magaalnimo, waa calaamad mutacalinimo, waa calaamad culumo, waa calaamad caaqil, waa calaamad qof kastoo mas-uula. hadda marka below intaysa kuu soo dhoweyn ayaa layska moosaa. haddee marku soo dhex gasho ma ogid meelay kaa asiibi doonto. qodobkaasi waa qodobkaas weeye. waxaan ku celinayaa marka la hadlayaa dhallinyarada. waad arkayseen wasiiradda caafimaadka meeshan ka tagtay 74% dadka baaritaanka loo sameeyey waa dhallinyaro u dhaxaysa 19 jir ilaa iyo 39 jir. waa cududii sidaan maalin dhawood sheegay, waa cududii, waa mustaqbalkii qaranka, waa madaxweynihii mustaqbalka, waa ra'iisul wasaarihii mustaqbalka, waa wasiiradii mustaqbalka, waa macallimiintii mustaqbalka, waa saraakiishii mustaqbalka. waa mustaqbal dhallinyaro mustaqbal isugaysaa. dhaxalka maanta marka aan idiin reebayna annaga waxay tahay inaan wacyigelin xoog leh idinka siino si ay naftiinnuna u badbaado, waalidiintiinnina oo ahaa kuwii ayagu qarankan soo dhisay ay u badbaadaan. marna waxaa la bilaabi doonaa ololahaas uu la socdaa wacyigelinta tirada badan leh aan wadno. waxaan walaalayaal idinka rajaynayaa dhigihiinna furtaan. waxaan idinka rajaynayaa baabuurka aan bareegga lahayn in bareeg loo yeelo. baabuurkii weli bareeg ma leh, hadda meeluu ka soo baxayaa. baabuurtii bareeggu hadda ka hore waxaa maqli jiray ixaas baa inta soo baxa bishii hal maruu soo baxaa, markaasaa neef loo qalaa. dadkii degmada inta shiray waxay yidhaahdeen war ninkaan maalin kasta wax siinayno maandilno. waa la dilay. markuu dilo 100 soo baxday oo mid walba hal neefoo arya rabo. hadda yaana saas isgaarsiin. walaalayaal waxay tahay oo runtu tahay haddii baabuur bareeg aan lahayn meel walba ka soo baxo. hadda waa arkayseen South West laga sheegay maanta. awal Jubbaland uu galay, Somaliland uu galay, Puntland uu galay, Galmudug uu galay, Hirshabeelle uu galay, Shabeellada Hirshabeelle waa ku jira. Banaadirna waa madaxii asaga waa baabuurka wadaba reer Banaadir. marka reer Banaadir waxaan maleynayaa inay maantay ay olole xoog la samayn doonaan iyadoo madax iyo shacab la iskaashanayo, culimo iyo dhakhaatiir, aabbo iyo hooyo, dhalinyaro oo hooyooyin, ururada bulshada, ganacsatada, qofka rabta sheega. waxaan ka tagay ga raali ahaadeen dhammaanteen inaan gacanta inta isqabsano cudurka hakino oo joojino. baabuurkii dhagxaan waaweyn asla luga waaweyn uu soo yeelanayaa oo dhagxaanta xataa loo dhigdhigay waa ka boodahaya. maanta qaar waa u googoynaya. marka inaan dhagxaan waaweyn dhigno oo aan u samaysano weye. waxaan warkayga ku soo gunaadinayaa waxay tahay maasku waa qurux waana fashion. aan ku faanno, aan dhammaanteen qaadanno, aan maantay dad casriga la socda aan noqonno. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.